mataanahan oo laba jira ah cusbitaalka Great Ormond Street oo London ku yaala laba qalliin oo adag ayaa lagu sameeyay si loogu diyaariyo in la kala gooyo imika ugu dambeyntii xilligii ayaa la gaadhay labadii maskaxood ayaa dibadda la keenay lafta maskaxda oo ay iskaga dheganaayeen ilaa dhalashadoodii ayaa la kala jaray 7 saacadood kadib dib u dhisidda lafaha koofiyadda maskaxda ayaa la bilaabayaa ugu dambeyntii 3 qalliin oo waaweyn kadib mataanaha maskaxdoodii waa la kala jaray sidee ayaa dareenteen markii ugu horreysay ee mataanaha kala soocdeen amin dareen leh ayay ahayd wakhti dheer ayay nagu qaadatay inaannu halkan keenno dhowr qalliin ayay mareen waana lagu guulaystay waa in aan lafaha maskaxdoodu dib u dhisnaa waan kala qaybinnay waa inaan dib u habaynaa lafahooda marwa weli waxa ay ku jirtaa qolkaasi qalliinka safa waxa la geeyey qolka ku xiga markii ugu horreysay badbaadada mataanuhu iskuma xidhna taasina waxa ay u sahlaysaa dhakhaatiirta qashay inay si gooni ah u eegaan wadnahooda dhiigga iyo calaamadaha kale ee muhiimka ah ee u baahan in la ilaaleeyo tan macnaheedu waa inay dhakhaatiirtu bilaabaan dib u dhiska lafaha maskaxdooda lafaha laga dhigayo koofiyadda maskaxdooda ayay ku qaybsanayaan qolka qalliinka si ay u helaan qayb ku filan dhisidda lafaha maskaxda labada gabdhood waa inay mid u qaybsadaan kowdii iyo barkii aroornimo ayay dhakhaatiirtu qoyska mataanaha la wadaageen warkan wanaagsan waxaa bilaabmaya waddada dheer ee ay ku bogsanayaan mataanaha maalin kasta waxaa la siin doonaa daaweyn duugis ah waxoogaa taabagal ah ayay ka faa'iidi doonaan sida inay isrogrogaan fadhiistaan madaxana kor u qaadi karaan 5 bilood kadib markii la kala gooyey iyo sannad kadib markii cusbitaalka la keenay mataanuhu waxa ay ka baxayaan cusbitaalka waxaa la gaadhay in la nabadgeliyeeyo dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka oo saaxiibbo dhow noqday loona guuro guri cusub waxay u badan tahay in mataanaha waxbarashada aasaasiga ahi ku adkaato laakiin hooyadood aad ayay u faraxsan tahay sida loo kala qaybiyey gabdhaha sidaad u jeedid aad ayaan u faraxsanahay maadaama waan hooyadood ahay ilaahay mahaddiis waan qaadqaadi karaa habeenkii ayaan la joogi karaa ilaahay ayaa ducadaydii aqbalay caqabado kasta oo ka hor yimaada marwe iyo safa sannadaha soo socda waxa ay u wajihi doonaan iyaga oo 2 gabdhood ah oo aan isku oolin